waxa uu maanta forumkeena ku saabsan yahay waxa weeyaan waxa la dhaho miisaaniyad hufan sanadka 2026 haddaan af Soomaali ahaan u dhigano waxa weeye wada tashiga miisaaniyadda ama citizen budget waxa la dhaho kana marka kii hore uu ka bedelan yahay dadku miisaaniyadda fikirka ay ka qabaan iyo sida loogu talagalay isma aha miisaaniyad sidaba waa qorshaha dawladda ee sanadlaha awiyay iyo sanadiyo laakiin maxaa la dhihi jiray resource-ka guud ee dalka iyo siyaasaddiisa yaa lagu jaangooyaa waxaana asal u ah dadka deegaanka ah fikirkooda iyo taladooda ayaa asal u ah in marka ayaga ay sheegaan bulshada waxa u daran ay sheegaan baa iyadana priority laga dhigo wada ognahay dalkeena priority amniga u ah laakiin baahiyaha kale waxbarashada iyo caafimaadka iyaguna waa mid labaad waay marka miisaaniyada inta badan bulshada ayaa la rabaa fikirkooda iyo taladooda inay ka imaato lagu saleeyay marka qorshihii guud ee dalka ee u yaallay iyo wixii emergency ah oo la dhaho maxaa la dhihi jiray emergency crisis ka imaado in xal looga heli karo dadku talada ay ka imaato sababtoo ah ma ogaan karno gobolada dhan dhibka ka jiro saaka cid ogaan karta ma laha laakiin haddaad daraasto oo waqti badan war aad raadiso waad ogaanaysaa baahida kabtay ka jiraan buundaa jabtay wada la'aan jirtaa kana jirtaa laakiin hadduu deegaanka asaga iska aamusnaado oo dadku waxba ay sheegin cid ogaan karta ma laha marka miisaaniyadda waxyaalahaas inta badan yay la qaadaa marka insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa marka hadduu shirkeen insha Allah wasiirku noo fur aad baan u mahad celinayaa waxaan rabnaa marka si la xajeclo leh baahida dalka xagee ka jirtaa maxaa tala